waxa loo baahan yahay dadka saalixiinta wanaagsan waana sida ilaahay mahadi mujtamaceenu u badan yahay ee ka damqanaya xumaanta noocaas la faafinayo ee inta yar ee xumaanta doonaysa inay faafinaysa ay jaanis ka dhiganayso tan noocaas ay dhinac looga soo wada jeesto si dhibaato weyn oo kuwa iyo inagaba ina wada haleelaysa ina wada saameynaysa aan inoogu dhicin abaartii iyo xanuunadii ka dambeeyay daacunadii ugu faafay iyo dadkii inaga dhintay iyo caalamka waxa ka dhacaya iyo muqdisho waxa ka dhacaya boqolaalku ay ku dhinteen boqolaalkuna ay dhaawac yihiin waxyaabaha soo dhan wax inaga fog maaha Allah subhanahu wa ta'ala inuu nagu soo celiyo waxaynu u baahannahay walaalayaal Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu inoo sheegay hadii fasaadku bato in loo baahan yahay cidi inay u kacdo fasaadka inay yarayso ama ay baabiiso qulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard dad wanaagu ku harsan yahay dad dareen ku harsan yahay dad damqanaya dad Allah subhanahu wa ta'ala weynaysiinaya dad Allah subhanahu wa ta'ala ka xishoonaya dad umada u turaya oo uga turaya ciqaab guud inay ku timaadaan loo baahan yahay qof waliba halkiisa inuu ka kaco xaafadaada inaad ka warhayso waxa weeye dacwada iyo khayrka socdo inaad ka qayb qaadato hay'adda al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar ee waajibka ay isu taagtay in la taageero hiiliyo hooba lagu taageero la garab istaago tanoocaasa waata waxa weeye mustaqbalkeena iyo badbaadadeena adduunyo aakhiraba ay ku jirto fasaadka socdo marka munkaraadka laga yimaado maalmahan si laabmaya ee xoogaysanaya fasaadada kale hadda socdo waxa kamida colaad in la abuurayo munaafaqada iyo qabyaalada in la boonbooninayo dadka cuqdada in la isu gelinayo nacay qulubta in lagu beerayo iyada ujeedada looga jeeda ay tahay si dad iyo cod loo helo laakiin ka guuleystay wuxuu faa'iidaya hadduu u talinayo ummad isnacday ummad kala dhaqaaqday ummad isu cuqdadaysan ummad aan dhinac u wada jeedin waxa weeye talinta uu talinaya maxay noqonaysaa xaaladiisu horumar ka shaqayn maayo hadduu ugu fiicnaado uu dadaalo kala celi oo kala hor inuu ilaahdo ayaa laga yaabaa taasina waa waxay hawlahan hadda socdaa ay keenayaan oo aad moodo dadku inay marqaansan yihiin kuwa ololaha wada iyo kuwa miidiyaha ka hadlaya iyo kuwa daawanaya ay wada marqaansan yihiin waa in la ogaado walaalayaal mujtamacan dhibaatooyinka ugu badan ee ay haystaa waxay tahay dantooda inaanay garanayn markaynu ka hadlayna Yurub iyo Mareykan waxa la yiraahdaa waa mujtamac horumaray baa la yiraahdaa laakiin xaqiiqadu sidaa ma aha horumarka inta aan la gaarin waa mujtamac dantiisa gartay weey inaynu ka tashano maxaa inoo dana inaynu ka tashano maxaynu u baahannahay maxaynu haysanaa maxaa inaga maqan in la isweydiiyo ayaynu waxa weeye u baahannahay mararka siyaasiyiinta inaga soo dhaxbaxeen laakiin waajibku wuxuu saaran yahay bulshada oo culimadu ay kow ka tahay oo madax dhaqameedku ay kow ka yihiin oo acyaanta iyo dadka magaca leh ee tala qabeenka ay kow ka yihiin dawladana iyaga dhisay dawladu iyaga ay ku taagan tahay taladu qacantooda ay ku jirtaa ummadan waxa weeye talo wanaagsan inay u keenaan waxaan u baahannahay walaalayaal Allah subhanahu wa ta'ala inaynu ka cabsano Allah subhanahu wa ta'ala inaynu ka cabsano Allah inaynu awoodiisa dareensannahay Allah subhanahu wa ta'ala ciqaabaadkiisa kala duwan inaynu maskaxda ku hayno oo si sahal ah aanayno dhaafin qodobka markaan inta ku dhaaf waa in la inaga helo dad wanaagsan oo wanaaga u kaca qadiyadan ololaha ku saabsan iyo sida loo yaacayo danaheena gaarka ah waa ka hadalnaa beel waliba marka xuduudkeeda la soo galo miidiyaha ay u baxdaa markay diinta alla noqoto maxaynu kala leexleexanaa oo qof waliba u gaabsada markay danta guud iyo maslaxada guud ay timaado muxuu mid waliba u yiraahdaa ima khusayso muxuu mid waliba u shakiya oo u yiraahdaa matayda loo jeeda ma maanta mawduucyada noocan laga hadlaya ma codka la doonaya in la iga wiiqo ma ololahayga la doonaya in la baajiyo waxyaabaha soo dhani waa dana gaara weey waxaanu la qaylinaynaa
aanu la hadlaynaa waa dantaa guud ee ummadda ka dhaxaysa xilku waa meerto maalinba nin baa qabanaya ta ugu horeysay loo ordaya waa dantiisa weeye laakiin bulshada dhan maxaa u dana tanoocaas inaynu mar walba isweydiino ayaa muhiima kowna waxa ka ah inaynu wanaaga ka shaqayno islaaxa ka shaqayno horumarka ka shaqayno xumaanta yarayno fasaadka la dagaalanno taa isugu hiilino isku garabsanno waxa weeye hiil iyo hooba lagu bixiyo ala wasallu wa sallimu ala nabiyyikum al-amin alladhi amarakum Allah bis-salati was-salam alayhi biqawlihi fi kitabihi al-mubin inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad